sanadada dambe mooladu waxay noqdeen kuwo aad ugu xidhan nolosheena xitaa markaas saxaanayso habeenkii waxaa ugu dambeeya aad samaysaa weeraad moolkaaga macasalaamaysa markaa soo kacdan waxa ugu horreeya qabataa weeraad moolkaaga tableena farrimo ku yaalin cilmi baadhis la sameeyaa waxaa lagu ogaaday in qofku maalintii moolkiisa eego xisdeed jeer ka badan waxaa maanta idiin soo bandhigaya xaqiiqooyin ku saabsan moolka gacanta kusoo dhawaada awoodda xisaabinta loo isticmaalo telefoonada lasoo saaro maanta waxay ka wada awoodda xisaabinta kombiyuutarada la isticmaalo taasoo fududaysa muhiimadii ku degitaanka oogada dayaxa ee mishinkii Apollo 11 sanadii 1973 waxaa soo baxay moolkii ugu horreeyay gacanta lagu qaato ee suuqyada dalka Mareykanka qiimo dhan $4,000 hal moobil la siiyay sanadkii 2012 shirkadda Apple ee dalka Mareykanka laga leeyahay waxay awoodeen inay 340,000 moobil maalintiiba waxaa jira bakteeriya maadooyin badan oo laga helayo telefoonka gacanta oogadiisa kuwaas 18 jeer ka waxyeello badan kuwa laga helayo suuliyada bilcadaha Japan boqolkiiba 90 telefoonada gacanta oo kuwa aysan biyuhu gelin kuwaas dadka reer Japan isticmaalaan xitaa xilliyada qubaysanayaan shucaaca ka soo baxay telefoonada ayaa waxay qof ku keeni karaan inuu nuglaado hurdo madax xanuun iyo isla maqnaansho joogto ah taleefankii ugu horreeyay gacanta waxaa la sameeyay sanadkii 1973 waxaana sameeyay Martin Cooper mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda caanka ah ee Motorola faa'iidooyinka shirkadda Apple ee ka heshay iibinta telefoonada smartphone-ka ayaa waxay ka badiyeen shirkadda Microsoft dhammaan alaabteeda Nemophobia waa jirro maskaxeed dadku ka baqaan inay lumiyaan telefoonadooda gacanta ama ay tagaan goobo ay ku riyihiin khadka internetku taasoo aan ka fake karin xiriirkooda bulsho telefonkii ugu iibsiga badnaa taariikhda adduunka waxay heshay shirkadda Nokia wuxuuna ahaa telefonkii 1100 dalka Ingiriiska sanadkii waxaa ka badan 100,000 in ka badan oo telefoonada gacanta ah ayaa luma kuwaas oo luma siyaabo kala duwan tirada dadka isticmaala mooladu waxay ka badan yihiin dadka caafimaad qab buuxa adduunka oo dhan dalka Shiinaha tirada dadka isticmaala moobilka ayaa ka badan tirada dadka isticmaala kombiyuutarada maanta intaas aad soo bandhigay haddii video ku cajabiyo fadlan like saar kanaalkana subscribe saar السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته